kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo ay soo wajahday culays siyaasadeed oo sabab u noqon kara xilka qaadistiisa laba arrimood ayaana sabab u ah in xilkiisa uu ku waayo waana arrin waayihii ugu dambeeyeyba taagnayd iyadoo dhanka kalena 2 asbuuc ka hor xildhibaanada golaha shacabka ay mooshin ka keeneen xilka qaadisa balse guddoonka iyo sidoo kale villa Soomaaliya oo iskaashanaya ay is-hortaageen oo arrintaasi ay meesha ka saareen waa arrin maalmihii ugu dambeeyeyba taagnayd 12 saac ugu dambeeyeyna kulamo arrintaasi looga arinsanayo ayaa ka dhacayay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya haddaba labadaasi arrimood ee sababka u ah xilka qaadista ra'iisul wasaare xamse cabdi bare ee xilkiisa uu ku weynayo maxay yihiin qodobkeena koobaad ayaan ku iftiimin doonaa hadduu allaydmo qodobkeena labaad maalmihii ugu dambeysay ama bilihii ugu dambeysay baa aan dhahnay xaruntii lagu toogan jiray dadka dilo ama dilka toogasho ay maxkamaduhu ku soo xukumaan gabi ahaanba derbi ayaa lagu wareejiyay waxaana istaagay dadkii dilka toogasho lagu fulin jiray ee dilka toogasho ku xukunaa gabi ahaanba wax la toogtay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ma jiro oo weliba gaar ahaan lagu toogtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa xabsiyada ku jira dhagar qabayaal badan oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatadii ay geysteen wali qalbiyadooda iyo dhagahoodaba ay ka sii shanqarayaan waxa kamid ah raggaasi ninkii gubay xaaskiisa oo waliba uur u lahayd waxa weey gaaska ku bilbilay gubay taraqa ku qabtay saddexda maxkamadood maxkamadda darajada koobaad iyo maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda saraba dhamaantood ay soo xukuntay oo dil toogasho ay ku soo xukuntay ninkan ka hadlayo waa Sayid Cali Macalin Daawud waxaa sidoo kale ku jira oo isagana dil toogasho ku xukuman laba nin oo ciidanka dawladda booliska ka tirsana oo waliba nin taliya ah mid taliya degmo aha iyo midkii staafka u ahaa oo iyagana dilay nin ganacsada ah oo dhalinyaro ah ninkaasi waa ninkii la dhahay Cabdi Fataax Qoslaaye iyo sidoo kale Qoone oo u ahaa staafka Qoslaaye aha labadan nin iyagana dil toogasho ayay ku xukuman yihiin raggaasi saddexda ummadda Soomaaliyeed walow kuwa badan ay jiraan oo kale laakiin saddexdaasi way ka duwan yihiin bulshada Soomaaliyeedna toogashadooda iyo marka tiirka lagu xidhayo ayay wali sugayeen laamihii ku shuqul lahaa toogashada raggaasi waxa ay marar badan dawladda ka codsadeen meeshii lagu toogan lahaa in la siiyo goobtii lagu toogan jiray oo ka tirsanay xaafadda School Bulisiyo gabi ahaanba dawladda xidhatay goobtaasi lagu toogan jiray waxa ay ka mid ahayd goobtan dawladdu ay darbida ku wareejisatay ay xidhatay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud baa intay darbi ku xidhatay bay ganacsada ku wareejisatay ilaa iyo hadda waxa la leeyahay dhagar qabayaashaas iyo ragga la midka meeshii lagu toogan lahaa baa la leeyahay waxa qabadaha taagan iyo dhibaatada xukuumaddu ay geysatay iyadana waa dur istaagi doonaa soo dhawaada boqolka la exaara fogeeya meel dheer ka tuura insha Allah taala aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare cadaadis siyaasadeed iyo culaysyo waaweyn oo uusan qaadi karin dhinacna uusan uga lug bixi karin ilaa uu xilka ka taga ma ahaane ayaa haysta waana arrin waayihii ugu dambeeyeyba soo socotay oo mid maanta bilaabatay ama shalay bilaabatay ma aha laakiin way isa soo tareysay dhowrkii bilood ee ugu dambeysay waxaa soo xoogaysanayay mooshinka xilka qaadista ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare marar badan bay isku dayeen xildhibaanadu inay mooshinka keenaan guddoonka oo garab ka helaya villa Soomaaliya ayaa arrintaasi ka hortagay 2 asbuuc ka hor 100 iyo saadaad xildhibaanada 200 ku dhawaad mooshin ay ku saxiixan yihiin ayaa guddoonka golaha shacabka la horgeeyay arrintaasi way ka hor imaadeen waa la saabasaabeyay xildhibaanadii baa la kala diray waa la kala furfuray waa la kala waxeeyay waa la kala laalushay arrintii villa Soomaaliya culays badan iyo xoog badan bay gelisay xildhibaanadii waa la kala diray hadda waxa soo xoogaysanaya mar kale mooshinka xilka qaadista ee ra'iisul wasaare Xamse xildhibaano badan baa mooshinka keenay waxaa sidoo kale iyadana dhabar jab siyaasadeed ku ah in dadkii uu matalahay wasiiradii uu matalahayay isku hayta ay ahaayeen ay iscasileen oo xilkii ay iskaga tageen oo waliba culus loo jeediyo leeydi anaga wax matalaadaba kuma lihin ba xukuumadda Xasan oo aad hogaamiso
isagoo ra-iisul wasaarahana uu meesha fadhiyo waa ceeb siyaasadeed waa fadeexad uusan weligii kasoo kaban karaynin weeye waxaa sidoo kaleeto ayadana maqan oo meesha ka baxay maamul goboleedyadii uu isagu ra-iisul wasaaraha u ahaa ee uu matalahayay ee 4.5ka uu ku matalayay iyagana meesha ka dhaqan bale weliba kaaga si daran maamul goboleedyo kale iska badaayay ninkii isaga ay wada dhasheen siyaasadda soo geliyey waxa weye dad ay iskugu dhawaayeen isku qoyska ay ahaayeen ayaaba hadda dagaalka ugu xumaa uu ka dhex taagan yahay oo le aniga ninkan ima matalo waa musiiba ku dhacday duqii xamsaha musiibo ayaan daro weyn oo siyaasadeed ayaa lagu tilmaami karaa in adigoo ra-iisul wasaare ah dadkaad matalaysay aad qofna ka wadan weydo mas-uuliyiintii maamul goboleedyada hal qof aad ka wadan weydo hal qof ku aamini waayo hal qof kugu dhaadan waayo hal qof waxa weeye siyaasadaada uu ku qanci waayo waa musiibo siyaasadeed oo ku dhacday xamse cabdi barre laba daran marka mid doona haysata xamse laba daran mid dooro laba arrimood inuu mid qaato ayay sharaftiisa siyaasadeed ugu soo noqon kartaa oo maxay yihiin inuu xilka iska casilo oo uu yidhaahdo xilkii waan iska casilay xilkii isaga hayan hayay ee ra-iisul wasaarenimo waan iska casilay waan fashilmay inuu yidhahdo irintaa ka baxo iyo inuu yidhaahdo waxaan la aragti ahay la mawqif ahay dadkayda iyo siyaasiyiintayda 4.5ka aan ra-iisul wasaarenimada ugu matalo labada arrimood hadduu sameey waayo xamse xilkana wuu ka tego horta waa laga qaadi ceeb siyaasadeedna way ku dhici dhinacna uma ciirsan doono xagga dowladda federaalkana waa ka ceeboobe waa ka dhimanaya xaggan maamul goboleedyadii iyo dhulkuu ka soo baxayna wax darajo ah iyo wax qadarina oo siyaasadeed oo uu ku yeelanaya ma jiro xilkana iyadu asbuucyada soo socda waa laga qaadiyo iyadu taas iyadu waxa weeye waa biyo kama dhibcaan mooshinkiisi baaba socdoba oo asagu xilka si uu joogaba ma jirto si uu u joogaba ma jirto ceebtaasaa horta duqi ku dhacday arrintaasaa haysata dhowr iyo 10kii saac ee ugu dambeeyey magaalada muqdisho kulamaa ka socdo siyaasiyiintu ay yeelanayaan weliba gaar ahaan siyaasiyiinta xisbiga damu jadiid ka tirsan ay yeelanayaan oo looga arinsanayo sidii xamse meesha looga saari lahaa maadaama uu ku fashilmay keenita ama haynta dadkii isagu uu matalahaya kursiga uu ku matalahayay oo qofna uusan ka haysanin arrintaasaa marka duqii haysata villa soomaaliyana ay ka arrinsanayaan waynu eegi doonaa dhinaca kaleeto muddo dhowr bilooda waxaa la leeyahay meeshii lagu toogan lahaa dadka dilka toogasho ay maxkamadaha dowladda federaalku ay kusoo xukumeen gaar ahaan kuwa gobolka banaadir lagu xukumo xaruntii lagu toogan jiray gebi ahaanba xaruntii iskuol bolisiya ka tirsanayd xaruntii gebi ahaanba waa la xidhay oo derbi baa lagu wareejiyey dowladdu derbi bay ku wareejisatayba ka guura bay tiri dadkii deganaa eriyadaas oo dhan waa laga qaxiyey xabaali waa laga saaray wixii o dhan waa laga saaray dowladdu ganacsatay ku wareejisatay oo derbi bay ku wareejisatay meel ilaa iyo hadda lagu toogto dadkii lagu toogto ayaa la leeyahay war ma iskuol bulgisiya horta ka tirsanayd misna waxay ka tirsanayd xaafadda dabdamiska adigu war iyo xaal meelay ka tirsanaydba waa la xidho derbi baa lagu xidhay cabasho badan baana soo gaadho laleeyahay dadka laynayay in la sii dayn doonaa baan u malayn oo meel lagu toogtaba lama hayaba laamaha ku shuqulla toogashada gaar ahaan kuwa haynta loogu talagalay waxa weeye la yidhaahdo ciidamada asluubta xabsigu wuu buuxaa bay dhaheen oo xasan sheekh maxamuud bay codsi u gudbiyeen oo la yidhaha xabsiyadii waa buuxaan dadkii dilka toogasho lagu xukumay dhibaatay geysan karaan intaasoo jeer bay jaalka ka baxsadeen oo dad laayeen oo askar laayeene maxaad naga dhowranaysaan meel dowladda hana siiso dowladdii xasanna meel ay bixiso oo dadkaasi lagu toogtaa la laayay sababtoo ah meesha lagu tooganayo waa inay noqoto meel amni ah oo laamaha tooganaya ee toogashada fulinaya aysan wax dhibaataa uga imaanaynin oo amnigeedu uu sugan yahay waa inay noqdo waa qodobka koowaad waa qodobka labaade meesha lagu tooganayo waa inay ahaato meel xabadda ninkaasi lagu tooganayo aysan dad shacaba gaari karin ama ay dhibaateyn karin ama aysan dhagahooda xataa maqli karin oo aysan dhib u keysan karin waa inay noqoto xaggee loo dooni marka dhulki waa la iibsay dowladda iyadoon ajando u haynin oon qorsho u haynin kale iyo meeshii lagu bedeli lahaa aan la samaynin ayay gebi ahaanba ganacsataa lagu wareejiyey waxaaba lagu wareejiyey waxa weye ganacsata la siiye waxaa lagu wareejiyey derbi weyn baa lagu wareejiyey jaq bay arrintu isku tahay gacan ku-dhiglayaashii
dhagar qabayaashii ummadda soomaaliyeed hadalhaynta weyn baraha bulshada ka dhaliyay dhowrkii bilooda ugu dambeeyey oo uu ka mid yahay sayid cali macalin daa-uud ninkii gabadhiisa oo weliba uur u leh dhowr bilooda gubay intuu gaas ku bilbilay saddexda maxkamadood maxkamadda gobolka banaadir iyo maxkamadda racfaanka iyo maxkamaddii sarena ay isku raaceen dilkiisa toogasho in la toogto ayaa weli jeelka dhex jiifa meel lagu toogtana laleeyahay waxaa sidoo kale isagana dhex jiifa taliyo qoslaaye shabakadii halista badnayd ee taliyaasha ciidanka taliyo qoslaaye uu hogaaminayey ee ciidanka ahaa laakiin caadaystay inay dadka intay qabtaan oy dilaan ceelkii dheeraa ay ku ridaan ee degmada garasbaalley ama ayba meel karo tuura ay ku tuuraan caadaystay iyagana dil toogashay ku xukuman yihiin jeelkayna ku jiraan raggaas mar hore in la toogta yahay waxa loo toogan laayahayna meel lagu toogtaaba laleeyahayba horta daaba la toogan lahaaba haddiiba la toogan lahaa madaxweynuhu xataa uu soo saxiix la dhihi lahaa oo loo geyn lahaa meel allaale meel lagu toogtaaba laleeyahayba dowladdii banaankii dadka lagu tooganayay way iibsatay waa banaankii dadka lagu tooganayay way dowladda xasan sheekh maxamed way iibsatay meeshii qubuuraha way iibsatay meeshii ciidamada way iibsatay tii isbitaalada way iibsatay tii dekada konteenarada lagu dayactiray way iibsatay tii iskaashitooyinka way iibsatay garoonkii qaybee ka iibsatay meel la dhaafayba ma jiraba madaxtooyada bas hadda soo hadhay iyo inta dekadu ay ku fadhido intaasaa soo hadhay intaana in la iibiyay waa suurtagal weliba waxaa soo baxaya xogo kaloo la xidhiidha in dekada qaybta dekada inay dowladdu raraysaba oo intaa ay iibsato ganacsato ku wareejisatay oo dad lacaga malaayiina siisatay oo la rarayo meel baadiya la geyn kar rabo oo dekada meel kale laga dhigi rabo ayaaba soo baxaysaba musiibadaasa horta dalkii ku habsatay waa ayaan daro in dowladdii ay ka bixi weydo iyo xataa ka xishoon weydo tiirkii dhagar qabayaasha lagu tooganayay oo halkaa dhaqaale ay ka dayootay meeshii yaraydee caruurtu ay ku ciyaaraysay marka kalena dadka lagu tooganayay waa meeshaa yartaa intaa yartaa weye intii baa ka baxsan weyday dowladda xasan sheekh maxamuud oo ay iibsatay bulshada soomaaliyeedna ishay ku haysaa waa la yaaban yahay qof walba waa yaaban yahay wuxuu leeyahay war haadhe dowladdan maxaa khaldan war meelba ka baxsan maysaba booskii banaana ee dad shacbaa ilaahay kama baxsanayo wax ka baxsanaya malaha ayaan daradaasaa dalkii ku habsatay ilaahay ummadda ha inoo badbaadiyo ilaahay dalka ha inoo badbaadiyo ilaahay dowlad tan dhaantaayay ha ummadda soomaaliyeed ha siiyo insha allahu tacala wixii kasoo korro waynu eegi doonaa